الميديا لوكالي isla markaana ay cid waliba dhanka doonaysay ula kacday oo waxay doonaysay ay ku darsatay waxay doonaysay ay ka reebtay laakiin se waxaan leenahay caawa runta jirta waxa weeye aroos qurux badan iyo lamaanaha istoortay ee aad arkaysaan oo runtii aan u ducaynayno oo aan u hambalyeynayno oo aan ilaahay uga baryayno inuu ka dhigo kuwii ifya aqraba guul ka gaadha waxa aan kaloo doonay inaan halka ku xuso sidaad ogtihiinba mar walba oo aroos la yimaado waxaa jirta in dadku ay runtii farxad badan ay muujinayaan oo ay halkan dad badan oo sharaf isugu yimaadeen farxaddiina waxaynu ku bilaabanaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah xuseen ibraahim ayaa inoo akhriyi doona xasan ibraahim xuseen hay khaldin axmed cabdibiito oo anaa saxsane xuseen ibraahim askar حسين بانو ديبي آيات القرآن كي نوخي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم كل مرة يقولوا القرآن كي آخري وين كلمة دي والمنا أنا الأعضاء marka hore waxa aan hambalyeynaya aruuska iyo aruusada nasteexo iyo xuseen waxaan leeyahay arooskiinu ha noqdo kii bashbash iyo barwaaqo ilaahayna waxaan idinka baryaynaa inuu ubad khayr qaba idinkala siiyo waxaan kaloo halkan ka soo dhawaynayaa dhammaan dadkaa sharafta leh ee quruxda badan ee soo ajiifay in ay caawa ka soo qayb galaan munaasabadan quruxda badan leh waxaan leeyahay kullay meelo fogfog baa ka timaadeen aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin taraagaa dheeraa soo gasheen caruuskana waxaan u rajaynayaa khayr iyo barako asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh xuseen ibraahim askar aad buu mahadsan yahay ducadana ilaahay inoo aqbalo dadweynaha sharafta leh halka ka soo qayb galayna mar labaad iyo saddexaadba way mahadsan yihiin waxaan jecelahay iminkana saaxiibkay axmed cabdibiite oo xoogaa iga yaro weyn oo xagga reerahana ka socday qoysaska inay kelmadiisa siiyo oo arooska meel dheer uga yimid oo ilaa Hargeysa uga soo socdaalay saaxiib Axmed soo dhaw bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan uga mahad celinayaa dadweynaha faraha badan leh quruxda badan leh meelaha fogfog uga yimid arooskan bilan waxa aan leenahay anigoo ku hadlaya magaca reer cabdibiite anigoo ku hadlaya magaca reer Somaliland anigoo ku hadlaya magaca reer Soomaaliya anigoo ku hadlaya shanta Soomaaliyeed waxaan hambalyeynayaa oo aan soo dhaweynayaa arooska quruxda badan leh caawa aynu wada joogno waxaan leenahay kuwa isku waara Allah idinka dhigo dhammaantiinna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida qiimaha badan leh ee aad u soo ajiibteen codsigayagii ahaa xafladan quruxda badan aan nagala cabirtaan aad iyo aad baan idin salaamayaa Puntland iyo cudur ku jira gaar ahaan reer Puntland waxaan leeyahay waa boqoradii baa ka socota waa boqor iyo boqorad ismay waxaan leeyahay mabruuq alif mabruuq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh axmed aad buu mahadsan yahay waa laba boqortooyo is helay barkii horena boqortooyada waxaa la odhan jiray fardaha inoo kala duwan laakiin fardahana way isla jaan qaadeen baanu leenahay waa fardo wada soconaya aad baa u mahadsantihiin dhammaantiinba organizationkii nidaamkana laynoo ilaaliyo mawliid baan isna u dhiibayaa oo halkan isna ka mida martida sharafta leh culus mawliid ku soo dhawow kelmadda thank you walaalka qaaliya mar labaad iyo mar saddexaadba waxa aan halkan idinka sheegay inaan ku soo dhaweynayno quraanka kariimka cadadkiisa aniga oo ah mawliid axmed iidaan waxaan caawa halkan doonayaa inaan hadal wanaagsan oo qurux badan ka idhaahdo caruuskeenna iyo caruusadeenna nasteexo ciise xirsi iyo xuseen cabdi ismaaciil dhinaca maaragtay yurube qaan raacayaa boqoradan magaceeda soo horraysiinayaa waxaan jeclahay in ilaahay ka dhigo gurigaa caawa inoo dhismaya guri lagu waaro qarniyo la xasuusto riisano badan oo lagu xasuustana waan idiin sheegayaa caawa waxaan jeclaystay hadday igu raacdaan waa ina sacabka tuntaan
waxay Somaliland Puntland Soomaaliya oo dhan waxay heshay caawa boqortooyo anigu wadankii waqti hore ay ugu dambaysay runtii laakiin waxaa la ii sheegay in xidhiidh dheer oo wanaagsan oo aan jeclay xitaa gabaygii qarniga dee waxaa loo tiriyay dumarka reer Puntland oo maaragtay habareerahaya caawa waxaan doonayaa idiin sheegno haddii aan anigu caawa matalayo sida walaalkay axmed inankii iga horreeyay hargeyseeni waa xuseen walaalkii oo ka weyn oo ilaa waqti dheer inoo yimid marka waxa weeyaan waxaan aad iyo aad u jeclaystay inaan halkan aad uga ammaano dadkii xafladan caawa soo suurtageliyey oo aad iyo aad igu dheer aan jeclahayna inay dee boqortooyada aynu caawa abuurnay ay noqdaan maaragtay dadkii la wadi lahaa madaxdii maaragtay la dejin lahayd boqortooyada haddaanu ciyaar dhowmaliye waxaan doonayaa boqortooyo dhaba ayaan rabaa inaan samayno marka waxaan halka uga mahad celinayaa nuure bidixle amran cali oktoobar roodo caddayse aamina ciise dheere foosiye khaliif cilmi ismahaan ama asma yuusuf kolba saa u taqaanaan waxaad leeyahay sidaa quruxda badan ee arooskan caaw check 1 2 sidaa quruxda badan ee caawa aan u soo casuumnay isugu nimi xafladda quruxda badan waxaan jeclahay inaynu maaragtay aynu u hambaliyeyno dadka aan magacyadooda sheegay xafladda quruxda badan ee ay noo sameeyeen caruuska iyo caruusadana waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryaynaa inaad guri ku waartaan heshaan carruur khayr qabta oo dadkooda dhaqankooda diintooda iyo dalkoodaba anfaca boqortooyadaha doonayana idintaaba qaada insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan igana raalli noqda waxaan halkan ka ilaabay marna habrartay marna saaxiibada abshiro oo iyaduna xoog way ka soo qaadatay abaabulkii xafladan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dad badan baa kolley jecel inay hadlaan marka waxaan ku soo dhawaynayaa iminkana oo aan qaybtii dee haweenkana waa inaynu siino codka qayb ka mid ah amaaley aadna soo dhowow oo kelmaddaadii adna aad halkan arooska iyo uga jecgelisay ku soo dhowow thank you walaalo maasha allah quruxda waxaan ku leeyahay ducadii loo duceeyey nasteexiyo xuseen ayaa caawa halkaa ka muuqata in badan baa loo duceeyaa saxaab iyo faamili iyo cid kastaba waxaan halkan hambalyo aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u qurux badan aan uga dirayaa walaashay nasteexa iyo walaalkay xuseen arooskooda oon leeyahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela gurigii lagu nastee lagu nagaado intaa ka bacdi waxaa halkan jooga caawa oo inoogu yimid fanaaniin aad u fara badan waxaan ku yidhi madaxaa laga ciyaaraya caawa awal lugaha laga ciyaari jiray caawa madaxaynu ka ciyaaraynaa waxaan ku soo dhawaynayaa fanaaniinta waxaa jirta heesa gaar ah oo loo soo sameeyey xuseen iyo nasteexo oo looga keenay hargeysa oo looga keenay meelo badan oo adduunyada ka mid ah heesahaasay ka mid yihiin qaar uu qaaday safaan iyo ay qaadeen saareleys heesiiba mar dhow insha allah aynu maqashiin doonaa oo lagu soo dhaweyn doonaa arooskii aroosadda iminkan waxaan ku soo dhawaynayaa qaybta fanaaniinta iyo walaalkay bidaal aan leeyahay idinkuna barnaamijka halkiina ka sii wata waxaan leeyahay hambaliyo mar labaad iyo mar saddexaad walaasha iyo walaalkay noqda labadii isku waana uba khayr qaba kale amaal aad u wanaagsan mahadsan tahay idinkuna waa mahadsantihiin wixii kuraasada ku fadhiisan karayaan ku fadhiistaan oo laga codsaday waan idiin sheegayaa waxaan iminka ku wareejinayaa in badan baanu hadlaynay gobolladii waaweynaa ayaa ila jooga waxaan jecelahay oo kale inaan iminka nimco yaasiin oo arooska soo dhaweysay haddana mar labaad soo dhaweynaysa nimco soo dhow baan ku leedahay aad baan idin salaamayaa horta marweynka sharafta leh arooskana waxaan ilaahay uga baryaa reerkii lagu nastay lagu nagaado inuu ilaahay ka dhigo awlaad khayr qabto saalaxa oo dalkooda iyo dadkoodaba anfacda ilaahay uu siiyo labadii kala dambeeya labadii sitraama labadii jacayl ku waara ayaan ilaahay uga baryey anigu arooskii horena waa joogay sharaf bay tahay kana waa joogaa
midna wuxuu ka dhici arooskii horta ugu xafladaha badnaa weeyaan mid turku ka dhacayaa mid haddana norway buu ka dhacayaa labana waa soo aragteen kii horena waa joogay oo ilaahay baa ku dhaartay macaa aniga albaabka soo jabsaday waa jacayl nasteexa ay jeclaayeen bay dadku albaabada xoog ugu soo gelayaan aad loo jecel yahay laakiinse intaa in lagama qosoo xumaan ay dhex martay ma jirto farxad buu ugu bilaabmay farxadda waa ugu dhammaaday maasha allah caawa hees baan qaadana aniga isbeere waxaan jecelahay arooskii aroosadda inay noo soo degaan idinkuna waxaan jeclaan lahayn intaad la soo arooskii aroosadda aad kamarooyinka u kala dhex inaad halkiina ama fadhidaan ama intaa cad bay arooskii iyo dadka maamulku codsadeen inaan sheego intaa cad inaad daysaan laakiinse wixii ka shisheeya idinkaa iskale inaan brotokoolka ilaalinana aad bay u fiican tahay yuusuf dheere dee kaala iyaga adaa wada hadale wadlaxma odhanayaa maynaga hadalka badin maayo hadalka waa la wada yidhi walaalkay xuseen biite iyo walaashay boqoradda nasteexayndho waxaan leeyahay alif mabruuk guurkiina guur khayr waxaan shacabka kale dadweynaha sharafta leh quruxda badan leh ka codsanaynaa si cajaladu inoogu qurux badato bliis saaladayna weyneeya waxaynu sugnaa waxa weeye boqorka iyo boqoradda soo dhaweeye sidaa
If you manage a team, you should be using Monday.com. Please, heestan waa hees maaragtay loogu talagalay arooska iyo aroosada only oo Safwaan Halac ugu talagalay. Please waxaan ka codsanaynaa dadweynaha arooska iyo aroosadunba ku ciyaari kara heestan. Ciddii dhaxda ku jirto please kuraastooda ku laabta ayaa la leeyahay maamulka. Please soo markaa waa arooska iyo aroosada oo qura ayaa ku ciyaari kara heestan.
dadku ha fadhiistaan heesta lama bilaabayo fadlan fadhiista carooska iyaynaan birtkoolka ka xumay hala fadhiisto caruuska iyo caruusado keliya ayaa doonaya inay ku ciyaaraan heesta lama bilaabayo ilaa qof waliba uu kursigiisii ku noqdo mooyaane aad baa umahadsantihiin in yar baa hadhay weli hala fadhiisto waxa kale oo ku xigi doono hees kale oo all the way Hargeysa looga soo diray ay ku xigisaa Ra'iilays ugu talagashay Xuseen iyo Nasteexa marka heestan iyo heesta xigta please cidna kicin arooska iyo aroosada loogu talagalay thank you
waxaa loogu tala waxay ka timid all the way from Hargeysa waxaan ugu talagalay arooskii aroosada Sahra Ilays heestan meel dheer ayay soo martay marka waxay leenahay wama soo kadib Sahra Ilays iyo arooskii aroosada Well,